ka waran haddii aad bedeli karto addresskaga 3 second oo kasta taasi waxaad keenaysaa inuu ku tixraaco addresskaagu waxa uu sheegayaa location-kaga waana arrin aad muhiim tahay inaad qariso xitaa haddii aadan ku jirin shaqooyin sharci darro ah waa muhiim inaad qariso addresskaga saxda ah kana qariso websiteska iyo applicationska aad adeegsanayso marar badan laga yaabo inaad aflamta ku aragto hackeris ee dadka la soo tixraaco maadaama addresskoodu markiiba isbedelayo taasi si loo sameeyo way fududahay muqalkenan maanta ayaan soo qaadan doonaa arrinkaasi soo dhawaad dhalinyaro waxaan adeegsanaynaa kalilinagas maadaama uu yahay operating amni ah ugu horeyn soo gal terminalka waxaan update ku samaysaa packageska kadibna soo degso tor sudo apt install tor okay intaasi kadib aynu wax ka bedel ku samayno configurationska iyo sida uu shaqayn doono tor inoo ka dhigayna inuu ogolaado inaan bedeli karno addresskeena soo fur configuration fileka tor adigoo qoraya sudo nano oo ah editorka isticmaali doono in location-ka configuration fileka kadibna hoos soco kadibna waxaad ku qortaa 9050 oo ah boorti uu ka shaqayn doono tor key authentication 0 hash control password oo empty ah intana waxay noo ogolaanaysaa inaan password la'aan bedeli karno oo in markasta aanan u baahnayn xaqiijin save kare oo taabo control plus x kadibna y kadibna enter taabo okay kadib waxaan sameeynaa inaan restart gareyno tor si isbedeladani ay u shaqeeyaan okay intaas kadib waxaan sameeynaa script yar oo bash ah taasi oo sameyn doonta inaan bedeli karno addresska 3 second oo kasta samee file cusub una bixi magac tusaale ahaan change ab kadibna ku qor scriptiga yar while true oo inoo sheegaysa scriptigan uusan joogsanin ilaa aynu joojino echo authenticate oo fariin ugu dirayno tor ka hor intaynan ku xidhmin signal new name oo aynu tor kaga dalbanayno inuu inoo sameeyo sirkii cusub oo kastaana waxay leedahay address gaar ah taa macnaheeduna waa in addresskeenu isbedelayo markasta aan helno sirkii cusub kadibna soo daabac fariinta inoo sheegaysa addresska cusub kadibna sleep oo ah waqtiga aan rabno in address cusub aan ku helno tusaale ahaan 3 second inta doonto ayaad ka dhigan kartaa scriptigan hal mar markaad rangarayso 3 second ayaa la sugayaa ka hor intaan mar labaad rangarayn intaasi ma isla fahanay kadibna save gare okay aynu file ka dhigno mid executable ah oo systemkeenu rangarayn karo kadibna rangare si aanu tijaabinin processkana shaqaynayo waxaan qori karnaa command-kan waxaad arkaysaa markaad rangarayso in addressku uu 3 second oo kasta isbedelayo waxaad soo kale processkana ku tijaabin kartaa browserkaaga sida Firefox markaad soo gashid tag settingska search ugu qor proxy ama network kadibna soo gal qaybta networka socket 5 dooro proxy-gana waxaa gelinaysaa addresska tor ee la soo marin doono isbedelka addresska in rabno 127.0.0.1 boortigana waxaad ka dhigaysaa 9050 halkana jeegare kadib hadda boqotida websiteska lagu eego addresska sida DNS leak test waxaad arkaysaa in addressku uu isbedeli doono 3 second oo kasta processkan iyo habkan addresska aad u bedeli karto waa mid markasta muhiim u ah saaxadda cybersecurity-ga iyo amniga qof kasta oo xilligan isticmaalaya internetka addresskaagu waa location-kaga inaad qarisaana waa muhiim okay haddii halkan soo gaadhay waxaan rabnaa ka jawaabto su'aal muhiim ah taasoo ah in processkani uu leeyahay meel uu daciif ka yahay ama ka dhigaysa mid aan aad u adkayn ammaan ahaan waxaa laga rabaa inaad raadiso oo soo hesho meesha uu systemkan inuu bedelaya addressku uu daciif ka yahay ama vulnerable ka yahay iyo halka laga dhigi karo mid 100% amni ah nagula wadaag qaybta commentiga ama telegram groupkeena iyo la qaybta description-ka mahadsanid